بسم الله الرحمن الرحيم كل wanaagsan qiyaartana la socota meel kasta oo dunida ka joogtaan askar Mareykan ayaa lagu soo waramayaa in maanta lagu dilay duqeymihii dawladda Iran ay ka fulisay wadanka Urdun haddaba waa imisa guud ahaan tirada askarta Mareykanka ee lagu dilay guud ahaanba dagaalkaasi markii uu ka bilowday gobolka imisa ayaana dhaawacantay sida Pentagon-ku ay ku dhawaaqeen warbixin gaar ah ayaan idinkaga hayaa maanta Iran gobolka bariga dhexe cabsi ayay u shiday waliba xaalad adag dhinaca kale hadii aan fiiriyana ninka ugu sareeya wadanka Iran Mujtaba Khamenei ayaa waxa uu ku dhawaaqay arrin la yaab leh oo ka dhana wadanka Mareykanka isagoo si adag ula hadlay xaaladaha isbedelaya ee ka taagan gobolkaasi qodobada sidoo kale daawan doonta waxa kamid ah marinka Hormuz saddex istiraatiijiyadood oo adag oo saameynaysa dhaqaalaha iyo dawladda Iran uga gol leedahay guud ahaan caalamka haddaba maxay tahay waxyaabaha halkaasi la qorsheynayo in laga sameeyo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump laba wajiileynaya ku jirta marka la eego dagaalada uu hadda ku wajahayo dawladda Iran maxay tahay waxyaabaha Trump uu ka baqanayo in markan dawladdiisu ay ku dhaqaaqaan iyo waliba qodobo kale oo guud ahaantoodba taabanaya gobolka bariga dhexe ayaan khiyaarta ay nala socotay idin kula wadaagaya qodobadan iyo dhacdooyinkan la xiriira wararkii ugu dambeeyay caalamka oo iminka meel aad u adag oo xasaasi ah maraya marka la eego dagaalka dawladda Iran ay kula jirto dawladaha kale ee gobolka bariga dhexe ee Mareykanku warfiiqooya ku horeeya madaxweynaha wadanka Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa goor dhow hadlay waxana uu ka hadlay xaaladaha ugu dambeeyay ee dagaalka bariga dhexe waxana uu leeyahay marka la eego dalabyada gudaha wadankeena ka imaanaya waxay horseedi doonaan dagaalkama dambayna iyo waliba in aynu gaarno siraha ugu dambeeya ee guulaha Mas'ud Pezeshkian ayaa waxa uu tilmaamay dalabyada midaysan ee ka imaanaya gudaha wadanka Iran in ay ku sii jiidayaan in la dhameeyo khilaafaadka gudaha isla markaana ay abuuraan buu yiri sir la xiriirta goolo iyo waliba in la qoro taariikho aad u adag oo wadankaasi Iran ka iman doona sida uu warkan goor dhow ka sheegay gudaha wadankaasi Iran oo ay caawa tabinayaan warbaahinta wadankaasi laba kamid ah askarta ciidanka Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weeraradii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha wadanka Urdun sida ay ku dhawaaqeen caawa mas'uuliyiinta ugu sareysa ee dawladdaasi askar ka tirsan Mareykanka ayaa lagu soo waramayaa weeraradii ka dhacay gudaha wadankaasi ee Urdun ay soo qaadeen ciidamada Iran inay ku geeriyoodeen askariga Mareykanka ayaa waxa la sheegay qaarkood wali in la yahay oo dhibaatooyin xoogan ay wajahayaan isla markaana baadi goobkooda lagu la jiro ilaa iyo hadda sida warka ka soo baxay taliska dhexe ee Mareykanka lagu tilmaamay ilaa iyo 4 askari oo kalena waxa laga soo badbaadiyay baaliyay goobta iyadoo la geeyay hospital ku yaala gudaha wadanka Urdun ka hor inta aan wadankaasi laga dhoofin qaarkoodna waxa soo gaaray dhaawacyo fudud sida dawladda Mareykanku ay ku tilmaameen weerarada ay qaadayaan ciidamada dawladda Iran oo hadda noqonaya kuwii ugu adkaa oo saameyn ku yeeshay guud ahaanba wadankaasi hogaamiyaha ugu sareeya wadanka Iran ee Mujtaba Khamenei lagu magacaabo ayaa ku dhawaaqay dagaalada ka soconaya gobolka in Mareykanka uu sabab u yahay mid isbedbedelaya oo sabab u noqonaya dagaaladu in ay ku sii xogeystaan guud ahaanba gobolkaasi hogaamiyaha sare ee wadanka Iran Mujtaba Khamenei ayaa si kulul u dhaliilay Mareykanka isagoo sheegay in jabinta heshiiskiisa afgaradka ee u dhaxeeya Tehran iyo Washington oo iminka muujinaya baa layiri sida uu hadalka u dhigay in saxiixa madaxweyne Donald Trump uusan lahayn mid lagu kalsoonaan karo oo la aamini karo sida uu Mujtaba hadalka u dhigay marka si guud hadalka Mujtaba loo fasiro macnaheedu waxa uu yahay Trump ballan kasta uu bixiyo iyo waliba wax kasta uu saxiixa lama aamini karo oo waa nin aan qooriyo xaraba lahayn sida hadalkiisa caawa ka muuqatay fariin qoraal uu ku daabacay barta X samarkaana ay baahiyeen warbaahinta Iran ayuu Mujtaba ku sheegay waxa uu ku tilmaamay jabinta soo noqotay ee Mareykanka uu ku sameeyay
heshiiska ay caddeyn u tahay baa layidhi siyaasadda Washington ee ku dhisan awood sheegashada iyo waliba ballanjabinta sida ay hadalkooda u dhigeen. waxa uu ku eedeeyay Mareykanka inuu ku guuldareystay fulinta ballanqaadyadiisa isagoo sheegay in dhacdooyinkii ugu dambeeyay ay muujiyeen wajiga dhabta ah ee dowladdaasi Iran. baa ku wajahan shacabka Iiraaniyiinta ayuu sidoo kale soo bandhigay caawa. Mujtaba Khamenei ayaa sidoo kale shacabka iyo madaxda dowladda Iran ugu baaqay inay ilaaliyaan midnimada dalka kana fogaadaan kala qaybsanaanta iyo waliba muranada siyaasadeed ee xoogaysanaya ee wadankaasi ka jira. waxa uu sheegay in mas'uuliyiinta ugu weyn ee saaran madaxda dalka ay tahay ilaalinta waajibaadka bulshada iyo waliba xasiloonida qaranka. dhinaca kale waxa uu ku booriyay shacabka in ay taxadir muujiyaan marka ay dhaliilayaan mas'uuliyiinta dowladda isagoo xusay in dhaleecayn kasta oo daacadnimadu ay ku salaysan tahay arrin wanaagsan balse ay muhiim tahay in la dhaawacin midnimada qaranka iyo wadajirka ummadda. wali kama muuqan buu yiri fagaaraha Mujtaba iyadoo hadaladiisa inta badan ay ku salaysan yihiin kaliya soo bandhigista qoraallo iyo waliba Twitter oo baraha bulshada ku sii daynayo. warbixintu waxay xusteen Mujtaba uusan si rasmi ah uga soo muuqan fagaaraha tan iyo markii xilka loo magacaabay oo aabihii kala wareegay markii la dilay kadib jagadaasi. sidoo kale waxa uu ka maqnaa aaska aabihii bishan lagu qabtay gudaha wadankaasi Iran. Iran waxay hakisay heshiiska ay la gashay dowladda Iran sida ka muuqanaysa hadallada ka soo baxaya madaxda dowladdaasi. dhinaca kale dowladda Iran ayaa ku dhawaaqday inay si rasmi ah u hakisay dhammaan waajibaadkii kaga xirnaa heshiiska is-afgaradka ah ay la gashay Mareykanka. ku-xigeenka wasiirka amuraha dibadda ee dhinaca sharciga iyo arrimaha caalamiga Qasim Jaribadi ayaa sheegay in Washington ay jabisay weyre heshiiska kadib markii ay qaaday tillaabooyin military oo saameyn ku yeelanaya guud ahaanba wadankaasi Iran. go'aanka ayaa yimid kadib markii ay xoogaysteen weerarada Mareykanka ee gudaha Iran halka Tehran ay ku jawaabtay weerar gantaalo ah iyo diyaarado aan duuliye lahayn. golaha iskaashiga qaliijka ayaa sidoo kale dhaleecayn u jeediyay dowladda Iran waxaana ay ku tilmaameen in aysan deeyi karin waxyaabaha dowladda Iran ay ku dhaqmayso ay u baahan tahay hadda inay si degdeg ah u joojiso oo dowladahaasi qaliijka aanay mudnayn mar kale in weerar lagu qaado. xogayaha guud ee golaha iskaashiga qaliijka Jassim al-Badawi ayaa si adag u cambaareeyay weerarada Iran ay ku qaaday wadamada Bahrain, Kuwait iyo Jordan isagoo sheegay weeraradaasi inay waxyeello gaarsiiyeen kaabayaal muhiim ah iyo xarumo rayid isla markaana ay dhaawaceen shaqaale rayid ah oo ku sugnaa Kuwait. al-Badawi waxa uu ku tilmaamay weeraradaasi xadgudub weyn oo ka dhana sharciga caalamiga iyo axdiga guud ee qaramada midoobay isagoo sheegay in ay kordhinayaan qalalaasaha qatarta weyn ee gobolkaasi ka taagan. madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu u muuqanayaa in uu hadda labalabayn iyo labac weyn ku jiro marka la fiiriyo dagaalka Iran isla markaana uu u bareeri layahay dagaal dhammaystiran oo gobolkaasi ka dhaca in uu galo sida uu hadalkiisa u dhigay. warbixin uu sheegay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isla markaana uu wajahayo xiisad kala dhaxaysa Iran isagoo adeegsanaya qorshe military ayaa waxaa la soo sheegayaa in laba marxaladood oo ka kooban yahay dagaalkiisa kaasoo lagu doonayo in cadaadis lagu saaro Tehran si ay u aqbasho wada hadallo ama ay ku fuliso dalabaadka dowladda Mareykanka. sida lagu sheegay warbixinta ciidamada Mareykanka ayaa maalmahan laba howlood isku mar wada sameynaya agagaarka marinbiyoodka Hormuz. dhinaca koowaad waxa ay ku beegsanayaan bara military oo dowladda Iran ay leedahay oo ku dhow marinbiyoodka halka dhinaca kalena ay adkeynayaan kormeerka iyo xayiraadda maraakiibta ee goobaha kala duwan ee wadanka Iran saaran. Hormuz waxa ay ku jirtaa marxaladii koowaad sida ka muuqanaysa warbixin goordhow sii daayay telefishinka Al Jazeera. saraakiil Mareykan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu Iran siiyo fursad ay ku gasho wada hadal balse Tehran ay sidoo kale sheegeen jabinta heshiiska hordhaca ah kadib markii weeraro ay ku qaadeen maraakiib ganacsi oo marayay biyaha caalamiga ah. warbixintu waxay sidoo kale xustay in saraakiisha Mareykanka ay ku eedeeyeen Iran tan iyo markii lagu dhawaaqay heshiiska hordhaca ah ee lagu weeraray
23 markab oo ganacsi isla markaana ay ku dhinteen 12 badmaax sida wararku ay xaqiijiyeen. Mareykanku waxa uu sheegay in ujeedada howlgalka socday ay tahay in la yareeyo awoodda militari ee Iran ee gobolkaasi isla markaana la sugo baa layidhi amniga maraakiibta caalamiga si xora in marinbiyoodkaasi ay u isticmaalaan. weerarada lagu hayo dowladda Iran ayaa loo kala qaybinayaa kuwo dhinacyo kala duwan leh. saraakiisha militariga ee dowladda Mareykanku waxa ay ku sheegeen goobaha laga rido gantaalaha, saldhigyo diyaaradaha aan duuliye lahayn, warshadaha hubka iyo qalabka militariga, xarumaha taliska iyo maamulka ciidamada, iyo awoodda badda iyo xarumaha saadka ee Iran guud ahaantoodba inay doonayaan inay burburiyaan. marxaladda labaad ee dagaalka dowladda Mareykanka ee ka dhanka dowladda Iran waxa ay warbixintu ku sheegtay in su'aasha ugu weyn ee hadda taagan ay tahay waxa loo yaqaan marxaladda labaad, taas oo la xiriirta haddii Mareykanka uu qaado weerar ballaaran oo lagu burburinayo kaabayaasha muhiimka ah ee Iran. inkasta oo Trump marar badan uu ka hadlay suurtagalnimada weerar weyn, haddana qiimeynta sirdoonka Mareykanka ayaa muujinaysa in aan weli la gaarin go'aan kama dambaysa oo ku saabsan weerarada noocan ah. mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in xaaladda iyo xogta ay ku xiran tahay baa lidhi go'aanada iyo waliba kor u qaadida Iran, iyagoo xusay in Washington ay arrintaasi jawaab sax ah ka bixinayso oo Tehran ku aadan. Iran oo awoodeeda ay ku tilmaameen Trump in ay daciiftay ayaa sidoo kale waxay hadda warbaahinta Mareykanku tabinayaan xogo kala duwan. warbixintu waxay intaasi ku daraysaa in qiimeynta sirdoonka ee Mareykanka ay muujinayso in weerarada ugu dambeeya ay si weyn u weeqeen awoodda militariga Iran. sarkaal Mareykan ayaa sheegay in weerarada gantaalaha ee Iran ay hadda leedahay ay saameyn nafsiyadeed oo badan ku yeesheen awoodda militariga ee qaranka Iran, isagoo ku dooday in Tehran aysan hadda awood u lahayn in ay fuliso weerar ballaaran oo wax iska celina. Trump weli wuxuu haystaa doorashooyin badan sida ay tilmaamayaanba xogaha kala duwan ay tabinayaan warbaahinta Mareykanka. warbixintu waxay sheegaysaa in qaar ka mid ah saraakiisha maamulka Trump ay rumaysan yihiin in madaxweynaha dalkaasi uu u baahnayn baa layidhi in uu ballaariyo howlgalka militariga, isla markaana uu leeyahay qorshooyin kala duwan oo uga jawaabi karo weerarada imaanaya.